كندا أيان إذن كور رميا dadka Canada jooga waa xaasidiin ba umaleena waxa ii soo qorayaan meelaha hilibka laga shaqeeyo aad meesha lacagta la hor aniga ma hilibka bixi karaan dhambaalahan leekahay xaqaldan bismillaah teeda kale video maanta kugu dambaysa farxad maanta kugu dambaysa bala bismillaah qofka at least waa la soo dhaweey waxa la wadankii lacagta imaatay wadankii farxadda imaatay sas ii soo qoraa Canada أيان إذن كور رميا يا حالد مسلمين تعين كتهاي يا هل كان نلقارسية يا هل كان نشوقني كندا وحام صومالي دو أي سوق قالني سوق حين كن يسقال بقول إيوه سديتن يسقال و 1989 وحي كدن بيي مركي لسوق قالي خير روانو كاني شر روانو لكولني خيركي أنو كان وحوها دينتي أن تذكي كفيدني ودمر فرضتكي باكستانتي يا هنديدي يا عربتي يا وحي مركي يورد دين تودو ودين يربي هيدو لغانا حشودو لغانا باقو وقف في الدنيا حجابتو انت أنو قولي كبحين ورور باديلي جري وقبل عربي دي أما قبل باكستاني دي مركي بحيسو حجاب كالكاسي ساري جرتي أيا وحا سود دقاي مراكب دات دمر صوماليات او جلباب كتشيدي الحمد لله dadkii hindidii iyo carabtii nala degana markay arkeen dhiriba gashay waxay yiraahdeen kuwan dadka madmadowee shalay soo galay haday diintooda caanka u adkaysanayaan dan kala hayn innakii meeshan ku korray ku dhalanay maxaynu uga baqaynaa teeno ayaga qodhoodii xijaab iyo jilbaab iyo niqaab ku daateen ilaahu barakeeyo mushkiladan kala kulana laakiin mushkiladan kala kulana waxay ahayd waxaanu unnimi dawladii oo nasugaysa dawladii marka waxay gacanta ku haysaa dad madmadooba loo yaqaano Jamaicans oo reer Jamaica ah dawladda khaatiyan bay ka taagantay ma shaqaystaan iskuul ma tagaan gangs bay wada samaysteen maalin dhan dhalinyaradu way hurudaa habeen oo dhan ayaga bay islaynaya ama waxbay dilayaan ama waxbay soo xadayaan qoysaskii ugu horeeyay Soomaalida wadanka yimi waxay dawladdu aragtay inay dadkan Soomaaliyeed dad nadiif ay yihiin dad nadiif aqal baa la soo galayaa dawlad dabadiis ka wasakhay tahay aqalkii baa la soo galayaa aqalkii gabadhii Soomaaliyeed fadhi carbeed yar meel allaale iyo meel kinta aan la garanin baa horta u yaala daahiyo gidaar ilaa iyo gidaar oo gidaaradii bay ku qarisay oo waaweyn si taro ma wax ka keentay wadankiina way suratay guriga marka la soo galo uunsi baa sankaaga gaaladii baa naga yaabtay gaaladii marka waxay yiraahdeen dadkan Jamaicanka ah ee drugska iyo khamriga iyo xashiishada iyo hablihii ay xumeeyaan iyo ayaga ismarinaya ma inta ka saartaan systemka dadkan Soomaaliyeed soo galisaan system kiba annaka la wada gali waana lagu wada guriibana lagu guray dadkii Soomaaliyeed marka way farxeen waxa dhacay marka daris kalena waa naloo dhigayo subhanallah marka gaalada aad fahamtid sida u fakirayaan ninkan caadi sidoo u fakiray waa ajiib wuxuu sameeyo ilaahay horta ma jirto wax walba wuu xisaabiyaa waxna waa uga jeedaa waxay arkeen marka inay dadka Soomaaliyeed sida digaaga u dhalaan ma sha Allah tabarakallah mid waliba 7 bay haysaa 8 bay haysaa halka way wada ordayaan waxay ogaadeen marka gabadhan Soomaaliyeed iyo ninkan Soomaaliyeed say u dhaqmaan daraasad wanaagsan bay nagu sameeyeen waxay ogaadeen ninka Soomaaliyeed inuu markuu wadankii uu joogay shaqadiisu ninka caadiga waa inuu subaxdii ka laha duhurkii buu soo noqonaya wuu qadaynaya wuu baxaya casarkii wuu maqan yahay laga yaabaa habeenkii inuu soo noqdo carruurtii iyo hurda mas'uuliyadda guriga waxa xambaarsan hooyada way u fakireenoo waxay ogaadeen ninkan Soomaaliyeed inuu asagu guriga atoora ka ciyaaro oo amarka uu bixiyo
amarkii bay kala bedeleen. gabadhii Soomaaliyeed oo wadankii markii ay joogtay ninkeeda masruufka weydiisan jirtay oo oran jirtay hooyaday baa baahan, walaashay baa baahan, aabahay baa baahan wax soo si ayaa inta ninkii laga soo wareejiyay miisaaniyadii ayadii loo dhiibay. waxa inta loogu daray waxa la yiri caruurtan aad sida ma sha Allah meel walba xiimaya intana waxaad ku qaadanaysaa lacag ayadina waa loo miisay. wadaadkii guriga atooraha ka ahaa ee Soomaaliya ka talinayay ayaa wuxuu buu isarka asagoo labbayka Allahumma labbayka oo gurina aan ka talin kareynin shilina aan haysanin gabadhina shaxaadaya xaaskii buu shaxaadu leeyahay bal ii yara dhiibday waxaan tagayaa waxaan ka soo sheekeynayaa maqaaxidiya. way ugu talagaleeno ninkii iyo gabadhii bay isku dhufteen. ninkii iyo gabadhii markay isku dhaceen gabadhii waxay tiri ninkii halkaa istaag. waa kanidan ka hadlaya anu kama hadlayo meel kale. halkaasay tiri istaag. ninka Soomaaliyeed ee Canada jooga ama wuxuu ka mar guriga uu soo galo egdumarka xarfadu mar guriga soo galo hadduu arko kiish madow oo kiishkii xashiishka albaabka hor yaala waa ka shubaha soo noqo xabaal marka garaacin weeyay. waa maryahaagii baa dabada ku yaala ee dhaqaaji. rag iyo dumarkiiba horta waa la kala kaxeeyay. yaa soo haray markaa waa caruurtii. waana loo fakiray anigu markan wadanka ilmo yar baan ahaa sharciga waxa la igu siiyay 15 mirid 15 mirid maxkamad layma marin waxba layma oranin maadiga ha oo kaliya baa socda welcome baa laygu yiri. islaantii marka hooyadii waxa lagu mashquuliyay arrimo caruurtii odaygii halka muu taagan yahay gurigii ma imanayo. ragga Soomaaliyeed dabacad bay leeyihiin markay gabadha isku dhacaan gabadha iyo caruurta buu israaciya labada wuu fura. halkaas uu caruurtu iska taagay haysa buu waaye. halkan bay marka ayadi jilbaabka ayay baskii la fooshaan caruurtii. jilbaab dheer bay baraf la dhex martaa. malcaamadii bay geysaa way ka soo kaxaysaa. iskuulkii bay qaar markay yaryar yihiin ay ku hor sugtaa. shaqadiiba ayadii bay ku dhacday. caruurtii marka way waaweynaadeen. markay caruurtii waaweynaadeen qolooyinkii laga saarayay guryaha ilaa maalin qura lagama saarine ayaa waxay ku sii wada tallaaleen caruurtii Soomaaliyeed wixii ay sameyn jireen oo dhan. khamrigii, xashiishadii, dilistii, waxadistii, gangstersi yaryarkii yaraay wadanka yimi af Soomaaligii way ilaaween. Ingiriis bay kula hadlayaan islaantii. yaryarkii marka annaka waa nala eega ida kulli halkan waa leediina macallimadu iyo macallinka ka dhiga caruurta yaryar uu basaasa. way wareysanaysaa maxaad sameeysaa weekendkan oo maan bixin oo waayo hooyada bay idishay oo maxay kugu dhufatay dacas. waa child abuse. ilmihii guriga loo celin maayo iskuulka ayaa laga qaadaya. hof waa laga qaadayaaba. islaantii baa la oranayaa kii soo ashkatooday qura laga qaadi maayo waxa la leeyahay wixii 18 jir ka yar guriga jooga waa laga qaadaya waayo mas'uul maba tihid. hooyada Soomaaliyeedna de markuu ilmuhu isyara waalwaalo maxaa lagu sameeyaa de waa dhirbaaxa kaga soo jaraysa bab taas aanka sal isku fahma yaryarkiibana laga urri. way noo fakireen yaryarkii markaa intay naga ururiyeen dad Soomaaliyeed ama muslimiin umay dhiibine waxay u wada dhiibeen gaalo. waxay u wada dhiibeen dad waliba gaalo maahe kaniisada ku xidhan waliba qoladan United Church ayaa caruurtii Soomaaliyeed loo dhiibay. caruurtii Soomaaliyeed diin garan maayaan
wixii ay yaqaaneen qur-aankii garan maayeen dee waabay ka masaxantay markay dhowr sano ka maqnaayeen. qolo la yidhaahdo Child Aid Society ayaa jirta oo hadduu ilmuhu uu mar galaba sida looga soo saara ay adag tahay. kuwii baa ilmaha ugu yar baa la meermeerinaya 3-4 sannadood. ilmihii oo aan Soomaalina ahayn Soomaaliya haddii la soo celiyo ayaa lagu soo celinaya. nidaam kale markaa naloo sameeyey, nidaamkii oo ah dadkan cadcade waddankanna keenay waxay ugu talagaleen caruurtan Soomaaliyeed ee waddanka la keenaya inay kuuli noqdaan. kuuligu markaa waa maxay? ilmuhu garan maayo, waxaa la odhanaya waxaad qaadanaysaa math baad qaadanaysaa, xisaab baad qaadanaysaa. xisaabtii laakiin xisaabta inankan cad la siinayo iyo inankan Soomaali way kala duwantay. midna waxa ku jirta P leerka P, midna D. maxay ku kala duwan yihiin? inankan Soomaali maadadan uu qaadanayo waa maadad loogu talagalay inaanu jaamacad ku gelin, oo markuu high schoolka ka soo baxo uu dhammeeyo uu isla jaamacad doono waxaa la odhanayaa hayay shahaadadan intaasoo course baad qaadatay, maadadaas cankaas wey, nambarkaasee leedahay, waxaa lagaga baahan 2 sannadood oo kale inaad college gashid sidaad u gaadhid darajad aad jaamacad u geli kartid. waa naloo fakiray moogta. ilmihii Soomaali 18 jir 17 jir weeye, wuxuu arkayaa wixii kale dadkii xaafadii wacanka odaygu hadduu shaqeeyo shaqo yaroo silcu iska haya, maalin la soo eedeeyo, maalin uu kala hayo, maalin caynka ama taxi yar buu fuushan yahay. marka ilmihii marka wuxuu samaynayaa, wuxuu odhanayaa maba doonaya iskuul anigu, haddaan xaashishad iibiyo ama wax soo dhaco intuu aabbahay ku sameeyo sanad bil baan ku samaynaya. caruurtii marka waxay u baydheen intooda badan, weliba inamadu waxay u beedhan marka inay xaashishadii iibiyaan, inay wax dilaan, inay wax dhacaan. jeelalka waxaan la yidhaahdo juveniles baa jira. juveniles waxa weeye ilmuhu intaanu 18 jir gaadhin wixii ka yar qaangaadh weeye. marka iyaga weeye Soomaalida boqolkiiba jeelalka 75 waa Soomaali. hadda waa waddankii oo dhanba 75 waa Soomaali. maxaa looga jeedaa marka? ilmihii Soomaali markuu ka soo baxo jeelka waxaa la gelinayaa inuu yahay criminal record, inuu leeyahay shaqo wanaagsan heli kari maayo. hadduu isaado isdabaro naftaada dib u soo noolaysiiyo ishagaaji, meel uu gaari karayaa ma jirto. noloshiisu marka waa ka kac. marka muxuu samaynayaa? dee waxbuu dilayaa, waxna wuu xadayaa, waxna wuu dhacayaa, shaqadana qaban maayo. guryaha waxaa noo jiifo ilaahay igu ogyahay qaar hooyooyinkood inta soo hadleen, hooye bay tiri Sheekh Saciidow inan yar islaamina marmar baad moodaa inaanay carruurtu kaba weynaanin. waxay tiri hooye inan yaro guriga ii jooga ayaan doonaya inaad u timaadaad la hadashid. muxuu qabtaa baan ku yidhi waxba uma hooye ma qabtay, guriguunbuu hordaayo maalin o dhan wuu hordaa, habeen o dhan wuu maqan yahay. haye cuntada yaa u kariya? hooye dee anaa u kariya, ana wax yar isku rida. maryaha yaa u maydha? dee anaa u maydha. yu kale maxaa shilin ma haysto oo baska lacagtaya siiya? dee aniga wixii laysiiyaan siiya. oo inanku waa imisa jir? ma 33 jir bay tii hooye. waa ilmo yaro, waa 33 jir. 33 jir weeye. ka waran hudheel ayuu inankani degan yihi. hudheel buu degan yihi. maryaha waa loo maydhaa, sariirta waa loo goglaa, guriga waa loo fiiqaa, cuntadiisu waa u sidiyaan, qadadiisa iyo quraacdiisa iyo cashadiisu miiskay taallaa. muxuu u shaqaysanayaa? waxba u shaqaysan maayo. sheekada ayaan waxaa noo dheeraatay markaa. waxaa cajiibka subxaan allah 2008 ayaan xaafad baan degay. xaafadda waxa weeye waa xaafad cusub. xaafaddii waxaad ugu tegaysaa dad wada cadcad oo dee waa aqalo waaweyn oo qurqurux badan oo baabuurta taalla, waa wada BMW Mercedes oo xaggayga qaali ah. waan soo degay, jaarkaygaan eegay, nin cad baan filayay, waaba nin Jamaicana. ka kalaan eegay waaba Rasta Jamaicana. ka kalaan eegay waa mid kaloo madow.
waan yaabay waar dadkani dadkii annakana lagu bedelay miyaanay ahayn may way yihiin oo haddaa maxaa dhacay waxaa dhacay markuu systemku eriyey ayagii ayay dabadda la soo dhigay dabaddii ma la soo dhigay dee nin wala markaa wuxuu isla adigu isdabar jaamacaddii bay wada galeen waxay ka soo wada bixeen jaamacadihii dhalinyaradii Jamaicanka annagu ka khashaafaynay ayaaba waxay wada noqdeen managers waxaanu gaarnay darajad gabadha Soomaaliyeed wallahi waan xasuusanahay marka dawladdu aqal ay siiso waxay oran jirtay Jamaican mid degan yahay areadan haddii la hada ha ma doonayo iga celiye meel kale geeya imika gabadha Jamaicanka marka aqal la siin waxa Soomaaliyeed ilaahan degan yahay Soomaali haddii la hada ha iga celiye oran Soomaaliyeed mid la degaye halkay ku jireen ayaanu galay carruurtii Soomaaliyeed marka waxay noqdeen dee waar intooda inamadu maaha hablaha inamadu intooda badani waxay u baydheen caynka ayagii markay soo dhammeeyeen waxyaabihii kale Jamaicaankii ay waddanka ka saareen waddankii bay ka saareen gaangistirada waddanku waa annaka maasha Allah tabaaraka Allah kuwa wax soo geliya hubka iibiya waa annaka waa Soomaali Soomaalidii marka ayagii baa isku dhacay Soomaalidii iminka waxaanu haynaa markii malaa'imka 6 bilood ka hortay waxaanu maraynay 64 inamood oo Soomaaliyeed 64 inanoo Soomaali kale baa dilay Soomaalidii ayaa gamta isu joogsatay Soomaali buu dilaya waxay ka bilaabantay moogtiin waxay ka bilaabantay cajiibeed tuulo yaro fog oo israadeen yaa la idinku arkin daydu ka meelan wax yaani dhacdacayo siga xashiix cabay way fogaadeen meel bay tageen inan Soomaaliyeed hablaheena subhanallah inan Soomaaliyeed oo rag Jamaican ay wataan Jamaican baa wata inantii Soomaaliyeed ayaa markii la cabay ayay inantii taabteen way maagmaagan way riixeen gruubkan inanta wata Soomaali inamana way ku jiraan habla Soomaaliyeed way ku jiraan waayo Jamaicanka iyo dadka maanta ajaanibka hablaha Soomaaliyeed ku hablaha Soomaaliyeed waa number 1 hablaha Soomaaliyeed subhanallah hableen aan ka noqdeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo soo hadeeyay Jamaicanki inan ka wax ka taagan Soomaaliyeed isagoo gruub kale Soomaaliyeed la socday ayaa dhiig dhaqaaqay wuxuu arkay inanta Soomaaliyeed caynka loo galayo kii Jamaicanka haye inanta riixayay farafareynay ayuu soo feeray ninkii Jamaicanka muu hadale aan la kiciyay qoladiisa bay urursatay mid Soomaaliyeed oo ku jira ayuu soo diray kiina nacasnimadiisa baastoorad bula soo halkaas ka dhuftay inankii Soomaaliyeed inankii inanta u kacay ka dhuftay wuu dhintay inan qoladii Soomaaliyeed ayay waanu argoynaynayo intay soo carareen bay kii Soomaaliyeed habeenkii dambe intay heleen ayaa sigina dileen ninkii Jamaicanka ay inanta faraxumeeyay meeshii uu ka baxay waxay noqdeen laba gruub oo Soomaaliyeed oo ayagii ismarinaya subhanallah carruur Soomaaliyeed Toronto lagu laayay suuqa hadda waa suuqa shaaracaas oo kale ayaa labadii habeenimo ayaa lagu laayay markaas waliba Madiina lagala baxay oo kabiil lagala baxay 8 subaxnimo ayaa carruurtii yareed Soomaaliyeed iskuulka baagtooda siiyay ku socotay iskuulka ayaa arkay meydkii wadada yaalay 8 subaxnimo way dawladdu waxay arkeen dadkan Soomaaliyeed waa madow waa Soomaali waa ajnabi waa qaxoonti waa muslim dan kamale hadduu nin cad yahay ama gabadh cali ahaan lahayd qiyaamaha kici lahaa labadaba jidda waa la joogi lahaa meesha wallahi billahi 8 subaxnimo ay carruurtii yareed arkeen hebel baa ku dhintay yaa ku dhintay waalidka waxa loo soo sheegay 8 subaxnimo ka dambeeyay kaaga daranta ilaa subhanallah ilmaha Soomaaliyeed dhinta ee asagoo dambiila dhinta ee ama ku dhinta macsiyad ila meel marajalay
وحيلاهي سبحانه وتعالى يوم القيامة لقى يابا إنه قدام بيضعفه وحتى هدا لسو عدبو إنه إلهي دي ورحمة دي سكسو صار عذابته وحا إنتا نقا قدرا هبلونا هو بطاني تدكي لقالي سيني وحا إنتا نقا قدرا تدكي لقالي سيني هبليه baa laga dhaadhicinaya diintii islaamku way ku abuse garaysaa xaq kuma siiso ninkaaga afar baa loo ogol yahay caynka inan yar oo Soomaaliyeed oo hooyadii la joogta oo haddana ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa midna aaminsaneyn baa halka naga jooga ma aaminsana waana gurigii aabaheed iyo hooyadeed bay dhex taagantay waayo wax laga soo buuxiyay caynkaas adu gabadha noqo isxore waad qurux badantay waxaad noqon kartaa maaral baad noqon kartaa siyaasaad noqon kartaa saasaa lagu hablihii markaa subxaanallah waxaad arkaysaa markaad habeenkii magaalo dhex taagtid hablo Soomaaliyeed oo rag ajaaniba la socda oo haddii tan walaalo oo dee adiga dhiig ku dhaqaaqo waxaan jooji wax ka oranaysa ama nara muslimiin maxaad doonaysaa muslimiin maxaad doonaysaa انت عرورتنا يعني سبحان الله ويرت مركن اركو انما رس نوغو يمي الشيخ خضر لا يراهدو خضر احمد عبد الله رس سويلنا ايا وحو نوغو يمي كندا مركاس وحو يدي انك بودي سويرشكو نمو فرفرا ونمو سو دويان انك وابا عكسك عرورت الصومالي سيدا لو دونيو يا سيدا لو سو دوينيو يا سيدا أدمودد إنه إله شيء إبليس وررتي قومم دن oo la yiri caruurta Soomaaliya soo baabi'iyo wadiyaabas tafiya miliq mushkilada jirta waxa weeye marka dadkii Soomaaliyeed way arkaan waxa meesha ka jira way arkaan oo waxa ka dhacaya way arkaan laakiin masaajidadii horta masaajid marka waxa loogu qaatay waa masaajidada anaka xagga iyaga laakiin waxa jira dad la yiraahdo Somali community samaystay oo dhowr iyo 7 ma noo qoran dhowr iyo 7 kaasi la yusminun wala yughnuna min ju' nin walba shandadu ku sida xafiiskiisa ku sita dawladdu in yar kaga soo qaadanaya markuu in yar kaga soo qaato uu soo baxaya marka in yar la siiyo kharaja wala mi'ad halkaas ka baxo muuq halka mar muuqam lawa ma maqli jirteen dib dambaba caruurtii yaryareed marka diintii islaamkana si wanaagsan uma fahamsana oo wuxuu dhigtaa intooda badan horta ma sha Allah caruur badan baa lagu dadaalaa in islaam iskuulka la geeyo laakiin waxay dhigtaan iskuulo ajaaniba kuwii kale ee galay public schoolska imika waxaan isku haysanaa Canada la isku haysto dawladii baa tiri war iskuulka markay timaado caruurta Soomaaliyeed waa number 1 saaqidinta marka nala wada xisaabiyay in la wada eegay caruurta Soomaaliyeed waxa la eegay Greek la eegay Hindida la eegay Chinese ka la eegay waxa la eegay Pakistanta Sri Lankinta la eegay Carabti baa la eegay Greek la eegay waxa community-ga ugu saaqidsani waa Soomaalida number 1 mana Portugiiska yana ka isku erina aygana nidaam baa loo sameeyay waa dad cadcado jidib nidaam baa la geliyo waa la doonay dadka la doonay meel gaaraan Soomaaliga laakiin waxa la doonay inuu kuuli noqdo systemkii marka ayana lagu cuna qabatay Soomaalidina way ka dhex shaqaystaan ayagii baa la kala khiyaameeyaa oo waxaan soo sameeyo oo qaar malaysan baad oranaysaa waxaan bay sameeysan qaar masaajidadiiba marka wax dhaqdhaqaaq leh ayaa loogu qaatay ma malaynaysan waxaanu joognay ilaa 1989 baanu joognay iskuul Soomaaliyeed ma lihin magaalada waxa joogana 200 oo kun oo Soomaaliyeed u noqonaya 200 oo kun oo Soomaaliyeed ay noqonayaan iskuul qolana ma lihin iskuul inama ka fur ilaaha ka baal mariyo oo dadaashay xalima la yiraahdo wanaagsan meel yar bay masjid Khalid bin Walid ba mala dhowr maqsin laga siiyay intay ka soo carartay meel kale xamili weeyday oo in yar ba haysaade iskuul walos la furto
hindidaa furatay, carabtibaa furatay, waxaa furtay gayaaniiskii, masaarida furatay. iskuul waloo la furto waalidka soomaaliyeed baa halka ka buuxa iyo carruurtoodii. waxaanu garan weyn haddaanu soomaalinay is urursada oo meel samaysta. horta Canada markan xagga sharka idinka sheekeeyo xaggaa weeye. khayr badanna waanu leenay oo dhalinyaro fara badan baa jiro oo masaajidada lagu dadaalo, laakiin waxaad moodaa dhinacii xumaa inuu naga xoog batay markaad meelo fara badan ka eegtid. oo xitaa annako ninka magaalada haysta mayorka waa ninka magaalada haysta ee Toronto haysta, waxaa la yidhahdaa Ford baa la yidhahdaa magaciisa, Robert Ford baa la yidhahdaa, Rob Ford. caruurs laba inanoo Soomaaliyeed, ninkan wuxuu cabaa xashiishada. annaga madaxweynaha xashiishada cabaa moogta, ma sha Allah tabaaraka Allah. xashiishadu cabaa. laba inanoo Soomaaliyeed ayaa xashiishada ka iibiya show. xashiishada ayuu ka iibiyaan. xashiishadii markaa show mid odaygiiba intuu shitay buu dee marqaamay, isagoo nuugaya ayuu midna ka duubtay video. waa ninkii magaalada haystay, waa Soomaaliye. wuu u tageen, waxay la hadleen miidiyadii, waxay ku yidhaahdeen kaalaya waxaanu idin daawadsiinaynaa madaxweynihii magaalada oo xashiishad cabaya. kamarana ma soo qaadan kartaan. carruurteena waa xarfaan moogtay, ma sha Allah. way u yeedheen, way tuseen. miidiyadaba ku tiri maxaad doonaysaan? $200,000 haddaana siisaan videoga waanu idin siinaynaa bay yidhahdeen. miidiyadaba soo baxday, waxay soo qoreen Somali youth, dhalinyaradii Soomaaliyeed. waxay may odhan laba qof oo cankaasa, no, dhalinyaradii Soomaaliyeed waxay hayaan video meerkeenu cabaya xashiishad. waxaanu doonaynaa community-ga inay lacag bixiyaan, waayo $200,000 bay idin weydiisteen. community-ga bixiya markiiba. account baa loo furay, dadkii suuqa marayay ayaa ka 10 ku tuura, ka 20 bixiya, ka 10 bixiya, 200 iyo charger baa labadii in loo ururiyay. waa nin cad oo madaxweyne ah, booliiskiibu tallaalay. annaku booliiska waxaanu ka weynay war xaafadahan Soomaalidan arag. xaafadaha jira annaku bilna dheer baa jira oo Dixon la yidhaahdo, ina maqasheenna mooyane waa international. carruur baa ka buuxda xunxune, soo qabqabta midhmidh, waan idin tusanaay, ma dhaqaaqayaan. markii ninkii la helay, ninkii markuu ashkatooday, ninkii caddaa, ayay intay galeen bildhinnadii islaamihii hagbadaha ku jiray oo dhan lacagtii ka soo ururiyeen. $600,000 bay ku soo ururiyeen 2 saacadood. say yidhaahdeen baleeg Soomaalida xashiishad bay ku hayeen bildhinnadanoo $600,000 kaasha ayaanu haynaa. islaamihii waxay leeyihiin hooyo waa hagbadii. ninkan booliiskana wuxuu leeyahay been bay sheegaysaaye waa lacagtii xashiishada yarkay u haysa, yarkii hooyada u tay ayay u haysa. lacagtiina la qaaday, yaryarkiina intii la xidhay dhowr dee la doonaya lagu malaaso tuhmadda waa la sameeyey. annakiina xabana looma qaban. waxaynu kaliftay marka inaan idhaahno war haddaynu Soomaalinahay aynu is urursanno. waxaanu samaynay nidaam aanu nidhi bal masaajidadu hay is urursadaan oo dadkan Soomaaliyada ha lagu badbaadiyo oo carruurtooda ha lagu badbaadiyo. nidaamkii marka wuu shaqayn waayo, qolo walba waxay doonaysaa inay yidhaahdaan dee annaka kuma jiro, annaka haynana imika, annaka ku qoran, waan naqaan xalka Soomaaliyeed. anna Soomaalida ma kala aqaano. marka waanu ka baxnay, waanu dhaqaaqnay, waxaanu soo helay buildingkani xagga hore waa 3 dabaq, xagga dambana waa dabaq weyn. ilaahay baa weyne. sidan idinku qiyaaso, haddaa qiyaasan xisaabsanayno, masjidkani dhulku ku fadhiya waxa la waa 340 mitir square meter. dhulkani buildingkoo qura waa 23,000 oo mitir oo square. yani waa haddii aad Soomaali oo dhan ku xaraysid, aad carruurtooda ku xaraysid, oo wax walba ugu xaraysid, wuu nagu filaanayaa. inta waxaa u dheer saw aragteenba xaggan waxa ku yaala oo hadday arki lahaydeen
meeshii kubadda ku ciyaarayeen kubaddii lugta iyo tii gacanta iyo xagga dambo laga sameynayo balligii ama dee meeshii lagu dabaalanayay oon isliha weliba hablaha soomaaliyada muslimiinta way xaniban yihiin way meel ku dabaashaan ma haysaan dee xijaabka iyo jilbaabka halkana gaala ka buuxda iskama dhigi karaan meel baan u qodayna imika waxay leedahay iskuul bay leedahay iskuulkii markaa waxaa laga soo bilaabaya ilmaha yar xadaanada markay dhashaan ilaa ay jaamacad galayaan wuxuu noqonayaa iskuulka Soomaaliyeed qora ugu hag iskuul buu noqonayaa markaa islaamiya oo xisaabtii iyo biology iyo ingiriisiga iyo chemistry iyo geography iyo taariikhdii quraankii siiradii xadiidkii xifdigii laga samaynayo waxaanu rajaynaynaa iskuulkaasi inuu noqdo caruurta soo galo oo dhani markay high schoolka ka baxaan inay kulligood xufaad ay noqdaan insha Allah noo duceeyo in Ilaahay naga aqbalo waxaan doonaynaa soo saaro caruur Soomaaliyeed oo diiniyana dhisan cilmigiina dhisan waxaana laga yiri xalata waan uga sheekeynaya halkii habli joogay xalata sidanu Ilaahay nagu siiyay horta waa mucjiza masaajidkan gabigiisaba wuxuu jiraa 6 bilood gabigiisaba organizationka iyagan la yiraahdo Sakina masaajidka Sakina Community Center gabigeedu waxay jirtaa 6 bilood iyo badh 6 bilood iyo badh baan ku karay inaanu ku meesha iibino kadan aynu hadlayno programada ka socda madaxaasa ku xanuunaya oo duruus xifd quraan caruurtii wax lagu barayo meeshii tutoringkii wax lagu barayo caruurta iskuulka markay ka yimaadaan homeworkii homeworkii laga shaqeynaya wixii oo dhanba way leeyihiin kubadii lugta iyo tii gacanta iyo computer room ay ku ciyaaraan lagu mashquuliyo dhanna waan ugu sameeyay waxaanu doonaa markaa yaryarkayga yar markay soo galaan masaajidka waxay soo galaan subaxdii habeenkii cishaaba laga kaxeeyaa sidaad uga soo saartid masaajidkana waa qiyaama waxaad arkaysaa hooyooyinka caruurtii albaabka jiidayo ay wada ooyaan ma tagayno ma baxayno waxaanu doonaynay baanu helay waxaan doonaa ilmo yaro doonaya inuu masaajidka Ilaahay joogo oo suuqa waliba kuwii yaryaraa ma aha biyaha kuwa ina maqlaya wanaagsan maaha kuwii waaweynaa 17 jirkii 16 jirkii ma sha Allah inanka ugu horeeya waa 6 bilood inanka ugu horeeya wuxuu maraya suurat al-anfal yani quraanka buu ka soo bilaabay suurat al-anfal buu maraya kii ugu horeeyay waxaanu filaynaa dhowr bilood ka bacdi inuu khatimo quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala duu hawl yareeyo ka kala naxal buu maraya